soo dhawaad walaalaha qaaliga ku soo dhawaada channelkeena deeq alla channel haddana nagu cusub tahay subscribe noo saar insha Allah. maanta waxaan idin wadaa war cajiib ah warkaas oo ah dibadbaxyo dumar laga mamnuucay oo ka dhaca Pakistan. waa arrin la yaab leh oo aad loola yaabay. kolonyo baabuur oo saaran yihiin rag wada gar waaweyn oo lulaya calanka midabkiisu yahay cadaanka iyo madowga ayaa dhawaan isugu soo baxay gudaha magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan. ujeedada raggaani ayaa ahayd in magaaladaasi ay ka dhigaan dibadbaxyo ka dhan ah dowladda ra'iisul wasaare Imran Khan oo xilka haysay muddo ka yar 18 bilood. in badan raggaasi dibadbaxyada ka dhigay ayaa ka tirsan xisbiga islaamiga ah ee loo yaqaano GUIF waxa ayna isaga kala yimaadeen daafadaha dalkaasi Pakistan. balse dibadbaxayaasha ayaa aad uga duunaa kuwa ka dhacay daafadaha kale ee caalamka. waayo dadka dibadbaxay dhigay kuma aysan jirin dumar kaliya waxay ahaayeen rag. ka hor inta aan la shaacinin dibadbaxaasi ayaa xisbigaasi waxa uu baahiyay qoraallo dumarka ka mamnuucaya inay dibadbaxyada ka qayb qaataan. taa beddelkeeda waxaa lagu amray dumarka inay joogaan guryahooda ayna ragga banaanbax dhigaya u soo duceeyaan kaliya. amarkaas ayaa dhaqan galay oo hal qof oo dumar ah laguma arkin dadkii dibadbaxyada dhigayay Islamabad. kadib markii taageerayaasha xisbiga GUIF ay jimcihii soo gaareen gudaha magaalada Islamabad si ay ugu soo biiraan xisbiyada kale ee dhigaya dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda ayaa waxaa sida la sheegay soo baxay amar kale ah in gabdhaha wariyaasha ah aysan imaanin goobta ay dibadbaxyada ka dhacayaan oo aysan halkaasi warar ka soo tabin. gabdho suxufiyiin ah ayaa laga hor istaagay inay gudaha u galaan goobaha ay dibadbaxayaashu ku qabanayeen dibadbaxooda halka qaar kalena ay sheegeen in la foodiyay oo ay ku khasbanaadeen inay goobtaas isaga tagaan. gabar suxufiyad oo lagu magacaabo Shifa Yusufani oo ah gabar wariye ayaa waxay sheegtay in ay meeshii warka ka tabi islahaayeen lagu soo xoomay oo la foodiyay kadibna dantooda meesha ay isaga tageen. runtii arrintan ayaa waxay noqotay amakaag iyo arrin yaab leh. ugu dambeyn waxaa la sheegay inay u ogolaadeen dumarka suxufiyiinta oo yiraahdeen aan ku ixtiraamno laakiin lagu xiray shuruud taasoo ah inay soo xijaabtaan. insha Allah warkaas la yaabka leh waa ka dhacday Islamabad Pakistan. وكما هتسنتا وقتك الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.